السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا جيستوري تي في سيديان هربي نقول بلغ هذا إن شاء الله بدنا نجلسيو ما أنتم حربي ناس لا يجنو سيدي اللي سكوري كريا جامعة هذا هالكن أم بكولش كا ولو يقانو كو دقما ديوتيجا جيبوتي أم بواحد سكولي أيو دقمان بتست يهرت جيبوتي لك قاعدين يبغي تكنولوجي supérieure حلقة comment faire une inscription aux universités au collège au Canada donc وقيت تقول إن شاء الله إسلاعنا sida halka u arkaysiin waxaa saddex jaamacadood ba ka soo qaatay laakiin jaamacado badan baan ergi doonaa imaashaasha arkaysiin kan waxa weeye waa imaashkan wuxuu tusayaa waa jaamacadda Montreal ku taala kan waa University Toronto waa Toronto ku taala tanna waa jaamacadda ku taala Ottawa labadani waxay ku yaalaan province Ontario loo yaqaano tan kalena waxay ku taala province-ka Quebec loo yaqaano saa horeba nii soo yiri Canada waa 13 iyo ka tirsan tahay province labo saddex hoos tagta اللهم صل على محمد هوستكتا فدرالكا يو طبعا مكمل حبنا فدرالكا يي كندا يي كومنتاي يا صاحبي نري بلاس لأن إن شاء الله دولان قيبت أبو رئيسة سيدلو حين إنسكريبشن جامعة هالك بسم الله الرحمن الرحيم هل كندا كيسين إن شاء الله سيدلو أركيسين بوحك قرانك ليست دي زينيفرسيتي أو كيبك دونك waxaan ku bilaabaynaa laba oo kala saarayna 13 aan soo sheegnay waxa weeyaan sidaad u garanaysiin Canada waxa weeyaan qaybta ama province-ka qura ee parfaitement looga hadlo way jirtaa kuwa kale oo bilaanga oo maxaan ku Nouveau-Brunswick ku jira laakiin Quebec waa kuwa qura ee luqadda Djibouti laga hadlo maanta ahaan Faransiiska ku hadla weeyaan ee francophone-ka donc taabaan ku bilaabaynaa waa tii dadka u badan yihiin Djiboutina ay maxaan ku uraahayeen postule horey baan soo yiri 25 masla eegayna jaamacadood oo intus doona laakiin in ka badan ma sha Allah ma tasleegayna bal University Quebec inta jaamacadood ay leedahay waa imisa balaas la eegno sida arkaysiin ba waxa weeyaan maxaan ku uraahayeen tableau hor yaala waa 19 jaamacadood Quebec kuna ka hadlayna waa jaamacado college kama hadlayno waa qaybta kale ka hadli doona laakiin maanta Quebec waxaan qaadanay qaybtii établissement universitaire waxaa jiri doonta videoga partidoga waxa ka hadli doonta sejabiyaasha ka hadli laakiin maanta waxaan focus ka saarayna amba maxaan ku uraahayeenay shaafada saarayna oo isku taxanuujinayna waa jaamacada 19 jaamacadood inaad qura ma jiro wadalkiisin inaad ka tirsan yahay sidoo arkaysiin ba inaad ku dhex jira halkan waa inaad waa labaad weeyaan École nationale d'administration publique laakiin kiligii ma sawir min ugu soo sheegay سكولك قرأ يكويا لا ما أكبر لكن جامعة قرأ كتعلمها لكن سجال يتبون كروش شوار الليتين إن شاء الله دولان كسوسي هالكين كسوس على هذا بقى والله أنا تصو هاد يجار وحنا تصا ملول وككير وحول بقينا الأركتينين ونا أتباري كريسي إن شاء الله بسم الله إن شاء الله دولان يجار شو وسط يوتيوب كا يعني اللي بدون سوسيا شو كلنا صاد نقول ويا كريسين وأنا أركيا جامعة هالكن بيكون جيران وسجال يتم جامعة ويا ليست حوالي جامعة كودي يلا كبير دونك كادوني سين بيجين كريسين فيديو ما تكلم هلا يوصل أبليكيشن الله حيني أم ببرات مو حينه لكن وأنا تسيا أنت جبت سجال يتم بجبت أنت الموديسين وماها لو وكلو بدن بديرة كادو تيم بديري كريسين أو إيجي كريسين أم بوبوستيلين سين كوكاد يديرني سين دونك سؤال منو suuqsi kaleeta hadaan tuso halkana waxay halkan isku taxaluujiyeen ay dhinac isku saareen 10 base isku saareen 10 etablissement yagna ku yaala Quebec halkan 10kaasi halkan way ku dhex jiraan laakiin halkan hadaa doonaysiin waa qaybta ikamku waa 6 ka dirtirsan yihiin waa university halkan ku wada jiraan wixii Université de Québec loo ku dhama ikamka la yiraahdaa donc ICAM هو مونريال لكن قاب كلا واحد Université du Québec شفتيني وين نقرأ ICAM مونريال بالراها ونسوق قالوا Université du Québec de مونريال وين لكن Université Québec وحيلاد هاي كو لبا صدق أفر شنطة أيضا بيوكلك على يو ككبك ويالو لح ده سبب هالكم يكون حجران يو إنابتا إتاس تيتولي بيكون حجران لكن اللي أنا كلامه توصني جينيا طبعاً أيجو ده محاك وراهدين سو سلكسيونين أي هورو مريان كبك عادهان لكن مهم واحد هاي كان بيكون ده حجران دون ليه أنا ده إتي
19 jaamacadood baa ku yaala Quebec ka doontiin baad qaadan karaysiin parce que jaamacad ku leeyahay halka waxay selectioneen kuwii francophone-ka maxaa ku boqolkiiba boqol de français laakiin kuwan kalaba waa qayb bilingue leeyihiin way waxayaan donc waa u postuler karaysiin oo ku jirta Université de Laval baa jira Montréal baa jira Sherbrooke baa jira ETS jirta INRS jirta donc waa kuwa jaamacado 19 jaamacadood bi Quebec waa province Quebec qura 13 kii aan soo sheegnay waa province qura iyo 19 kale donc 19 kale digin karaysiin Ilaahay gaarsiin insha Allah haddaan ku socono insha Allah listiga dooga imika waxaan islaageynaa Quebec baan eegnay bal haddaba 12 kii kaleete inta jaamacadood ee u soo haraysan laakiin haddaan niraahno jaamacado way banaanayaan ilaa 200 ilaa 300 400 bay hor iyo kor dhaafay laakiin anigu hore baan soo niraahdo waxaan dad francophone Francis baa soo barnay donc jaamacadaha aad diganaysid waa inay ahaadaan jaamacado badiga francophone parce que waxyaabo badan bay ku fududeynaysaa kala qiiminaysid maxaa ku uraahideynay hore si maxaa ku uraahideyn fudud baa lagu aqbali karayaa sida ahaan baan insha Allah nigu ornaya u dhigto kuwa francophone laakiin sida uu yeelana 19 baa soo arnay Quebec laakiin kuwa kale 18 kale diga 18 kaasi waa programmada ay u arkaysiin baa wada waxayaan donc programka aad jeceshahay hore ma soo niri afar boo kala caari Djibouti hore waan arki doonaa insha Allah xasuusin dambe jirto qayb soo socota insha Allah nigu tusi doonaa xiga jaamacadu halkan saad warkaysiin waa maxaan ku uraahideynay 18 kale oo francophone aad digin karaysiin oo laakiin province saad warkaysiin halkan Alberta Nouveau-Brunswick Manitoba Ontario Nouvelle-Écosse Toronto inkastoo Toronto waxay ka tirsan tahay Ontario weyntaas xiga maxaan ku uraahideynay Colombie-Britannique isoo sheeg waa maxaan ku uraahideyn Toronto waa Ontario normalement Ontario Regina maxaan ku Saskatchewan intana ah Ontario Colombie xiga waa provinciyaashii kale wixii jaamacado ay francophone lahaayeen yaa maxaan ku uraahideyn halkan aan ku soo riday blas la eegno halkan liyaagana ka soo saaray insha Allah saad ila aragtiin qaadano kartos ku noogina insha Allah waa kuwa university ka doontiin baad qaadan karaysiin dad doontiin baad ku klikinaysiin bien campus ki noogina application waxaan karaysiin dad doontiin waxa qaadan karaysiin kuwan inkastoo qaar kuwii kale ku jira dirliyaagan laakiin aan waan kala saaray hadda halkan eegtiin waan kala saaray intii Quebec ku jirtay waan ka dhex saaray oo 18 bay noqotay laakiin intan hadda eegtiin dad soo laamo oo nitus intan hadda halkan tirisiin tiradani waxay noqonaysaa 32 jaamacadood laakiin 32 ma parce que kuwa Quebec ku dhex jira kuwa Quebec ka dhex saaray liga almuhim waxa weeyaan 19 bay yaan Quebec niri 18 waa intii soo hadhay halkan ku dhex jiraan maxaa ku raadeen halkan ba toos hadda dootiniyaga dootin ba qaadanaysa mid hadaan soo qaato province Ontario University Toronto waad klikin Kingston hadda doonaysid Regina hadda doonaysid waa Université Institut Français de Regina wala aha donc waad ku klikin à chaque fois mid kasta liyagiisi buu toos ku geenaya oo siinaya automatiquement والله منو وسي سعنا maxaan ku uraahideynay qaybta saddexaad daba laba jaamacadii waan soo tusoo waxaan niri Quebec 19 18 waa Canada kale waa kul isku dagay waa 730 jaamacadood oo mid quramaha inabti uma sadwarkiisin 730 kale probability kala leedin hadaba dadka badig waxay su'aalaha isweydiiyaan waa imisa hadaba lacagaha maxaa lagu dhigtaa si maxaa haddaba halkan detailga wax nima siinayo cayiman parce que waa niga sheegalka waa qaybtii ugu horeysay waa ni tusaya waxa jira laakiin qofka waxa jirta videoyaasha kale xabad baa u qaadan kan qaato insha Allah dulani gaarsiyo iyad mid walba maxaa ku raydiyo cayiman oo précis qiimihiisu programka qaadatid oo wuxuu dhigay laakiin waxa waa moyen imisa ay noqonaysaa qiimuhu imisa noqonaysaa hadii frais de scolarité aad qaadatid programme premier cycle wax ka dhigan tahay waa première année licence ka uu dhigma amba BTS ta waa premier c'est on fait première année baan niri maxaa ku raad baad ku kala qaato kadib jaamacada kale première année illa maxaa ku raadana sida licence ko troisième année laakiin ako baccalauréat bachelor ku qaata 4 ans donc waa 4 ans halkan waa waa licence qui ni uu dhigma laakiin sanad lagu daray waa saawiya baccalauréat maxaa ku niraadana aan ku soconay frère waxa weeyaan waa 1800 ugu yari إلا 20,000 sanadkii noqonaya jaamacada
halkan laakiin waxa waa wax kama dhigno iskoolka aad geli doontid qiimahan buu noqonaya kama dhigno waxay ka dhigan tahay adi bis waxay ku siinaysaa un maxaan ku uraahidenay waa iclaan bay ku siinaysaa waxyaabaha sugaysid waa lacag u dhaxaysa intaabaad sugi doontaa bay ka dhigan tahay sanadkii intaa u dhaxaysa yaa lagu wixiyaa premisitilka xilligaa après kolka jaamacaddu inta freego ay noqoto maxaa daba lagu noolaan karayaa su-aashu isweydiis iyo dadku isweydiiyaan oo lagu noolaan karayaa xilligaa waxay ku qiimeeyeen $12,000 buu qofku ku noolaan karayaa sanadkii wuxuu ku noolaan karayaa qofka ardayga ee jaamacadda imanaya halkan kolku iskool ka dhiganayo $12,000 buu ku noolaan karayaa xilligaa haddaba waxyaabahan aan iisoo saaray halkaa ka keenay iyo siday u kala saaran tahay baan isla eegayna insha allah ku horeyno programka haddaan horo gorno siidkan waa siidiro très intéressant aan yeelay insha allah xilligaa kuyaashu ku dhamani micneeya laakiin waxa waa école primaire iyo secondaire laakiin anigu muhiimadu waxa weeyaan waa qaybta jaamacadda markaysiinba waa kan maxaan iraahdeenay halka ka variyeys weeyaan maxaan ku iraahdeenay budgegan waxa waa laakiin waxay siinayaan waa maxaan ku calcul weeyaan moyen wax la yiraahdo ay statistique ka soo saareen parce que programmadu isku mid maaha mediciinka waxaynaya iyo ka droit waxaynaya iyo ka technique waxaynaya iyo ka sociology waxaynaya isku wada lacag maaha laakiin waa moyen bay qaadanayaan waa dhexdhexaadi weeyaan laga programka suurgashid kolka baad ogaan karaysaa qiimaha runta laakiin waa qiimo ku siinaya oo maxaan ku iraahdeenay oo journal mawadi ku siinaya maxaan ku iraahdeen idee ku siinaya waatan lacagtuna 12,000 aad arkayseen waa inta lagu noolaan karayo waad akhrisanaysiin iyagana waa nidayn doona insha allah haddaan kusii soconno maxaan ku iraahdeen qaybtan waa qaybtii dhaqaalaha intay noqonaysay waxaan iri waa 2,000 kaba soo qaad ilaa $20,000 bay sanadkii noqonaysa laakiin kuwa ka qaalisan baa jira kuwaas oo qaar baa jira ilaa $100,000 noqda xilligaa waa hadba programka qaadanaysiin ku xiran yahay waxay waa isku wada mid maaha programmadu $12,000 wax lagu noolaanayo weeyaan qofka ardayga ku noolaan karayo sanadkii haddii qayb baa jirta ay sii detaayeen baa jirta waxyaabaha lagu noolaanayo kud laaviga donc halkan waxyaabaha ay kala saareen waxa weeyaan ardaygu freega waxa weeyaan waa wuxuu cuni lahaa waa maxaan ku iraahdeen meeshuu geli lahaa wuxuu cuni lahaa nourriture-kiisa logementka maxaan ku iraahdeen gaadiidkii oo transportkii uu raacayay hadday metro tahay hadday bas tahay uu ku tegayo maxaan ku iraahay iskoolka ilaa xaafadiisa waa waxyaabaha weeyaan insha allah bilaani gaarsiiyo haddaan kusii soconno qaybta afraad waa su-aasha had iyo jeer soo laamata in la weydiiyo waa boursiga maxaan ku iraahay dadkeenu ay bourse des études waa waxweeyaan jaamacad kastoo la rabo mid kasta wuxuu rabaa inuu bourse yeelo horta boursigu waa run waa maxaan ku iraahdeen oo wax maxaan ku iraahdeen ay ugu muhiimsan oo dadku u baahan yihiin laakiin horta waa inaad garatiin wax bourse facile saa lagu bixiyo ma jirto si facilita dadku dhan baad heli lahaa laakiin surtout boursiyaal badan kanada way bixisaa laakiin markaa hubo waxaan hubo u manan la qaybsanayaa wax nacam aan garanayn amba aan u arkin amba aan u soo joogin ma raba inaan la qaybsado laakiin horta wax aan bourse maanta ahaan aan oranayo aan u soo joogo arkay indhahayga waxaa jiray bourse de francophonie taasna waxay ahayd Djibouti la soo maro weeyaan oo badiga bureau de bourse ki Djibouti baa soo valideeya ayaa kuwa ku yimid kaa quraan arkay oo kol anigeedii ba appliqueeyay oo halkaas aan waagi kala kulmay marxalad adag oo sidii aan rabay aan suurtagal weeday laakiin muhiimadu kaama arkay laakiin kuwan kale boursiyaashan kale way jiraan school walna meel laga weydiisto leeyahay boursiga oo maxaan ku iraahdeen application waxaynaysiin laakiin waxa weey horta waa inaad adii iskoolka dooratid après program baad dooranaysaa iskooladii aan soo wada tusay program baad ka dooran programka aad dooratay xilliga waxaa jirta anglais garab ah oo bourse yahay xilliga partiga baad ka postulinaysaa aad sida jaamacad u weydiisatay ay ku ogolaadeen kolka ogolaadaan boursiga maxaa ku iraahdeen ma u qalantaa amba ma lagu siin karayaa iyaga xilliga decision kale uu gouvernement la eegi doono iyaga idilba iskoolku waxaa jira bourse dowladdu u galeen inay ardayda siiso xilliga kuwa mi ku jira labaan example ka soo qaatay heshiisiga laakiin ma kala jecleen iyo inaabtii ay dadku jeclaayeen ma ka soo qaatay xilliga labadaaba ni tusi insha Allah duulaani gaarsiiyo labadaas haddaan tuso haddaan heshiisiga ku horeeyo sidaad u eegaysiin baa heshiisigu halkan programka sod 18 waa program baad gelaysiin waa programka gashiin waad arkaysiin hal jeer waxaa jiri doona rubrique uu leeyahay maxaa ku iraahdeenay haddaad tuskii noo maxaa ku iraahdeenay isoo sheeg maxaan iraahdeenay tuskii
concernant parce que waxaad eegaysa qaabka soit waxay yidhahaan étudiants étrangers soit non résidents du Québec bay oranayaan mais laakiin kuwaas non résidents du Québec waa qaybta Canada gashaa laakiin étudiants étrangers amba internationaux bay yidhaahaan xilligaa boursiga admissibilitygiisa maxaan ku uraahideynay donc kuwa admissible que wani sheegaan halkan oo kale exemple haddaan soit les candidats qui ne font pas partie des catégories ci-dessus donc wixii candidat kuwa aan ku jirin donc xilliga ils sont pas admissibles qaab baa ku oranay modalitygaad akhrisanaysiin sida lagu helo boursiyaasha fondationga xilliga iskool wal oo geshidba anglais wuxuu leeyahay bourse is renseigner gala akhrista waxa ku qoran xilliga boursiga sidaa baa loo helaa badiga hadii jeer su-aasha waa la weydiiyaa laakiin iskooladan soo wada sheegnay mid kastaba anglais buu leeyahay haddaan kusoo laabno par exemple oo soo iskoolka kalena inaanta isagana waa même chose financement des études de travail donc qayb kalu leeyahay waa bourse d'admission donc xilliga mid walba uu offrinaya xilliga adu waxaad eegaysaa conditionyaasha admissibility inaad buuxin karaysid waxa ku dhan waa postigin sidaad iskoolka u dhiganayso maad u dhiganaysaa après may ku yaalayaan may ku diidayaan kii ne toqliyaan ariyaan waa inaad isku daydid wixii qofkii haddaad wax isku dayi weydid waxa ma helaysid moogtahay isku day eeg hadday ku yaalaan way ku yaalaan haddii kalena muhiimadu waxay tahay waa sida eegi doonaa siyaabaha kale lagu noolaan kara Canada inagoo bourse haysan taas qayb kalaan ka dhigana insha Allah laakiin maanta muhiimadu waxay tahay waxaan rabay inaan tuso duka waxyaabaha anglayaasha laga arko ama laga helo boursiga laakiin waxaa kaloo jirta oo imikahan dhawaan aan arkay laakiin wali ma hubo waa xogteedii waa raadinayaa inaan arkana oo ka midho dhaliyana waa rabaa meel kale jirta na boursiyaa kale la sheegay bay jirta ama maqlay laakiin horta waxaan rabaa wax runa oo wixii qof qaatay amba wixii aan soo joogay kolkaan waan ila qaybsan insha Allah taasna waqtigeyga laakiin imikahan iskool walba wad gashiin angleyga boursigala akhrista waad ka postulen karaysiin haddaan kusoo socno insha Allah qaybta maxaan iraahideynay afraadkan qaybta shanaad haddaba iskoolada aad soo aragteen iminka iskool walba kolkaad doonaysid inaad postulaysid amba jaamacad walba kolkaas kurtid muhiimadu waxa weeyaan condition bay leeyihiin oo lagu aqbali karayo oo dee maalintaad qaadatid qaraarka iskool baad doonaysa kurtid waa inaad maskaxdaad ku haysid waxaan waa conditionyaasha maxaan ku uraahideynay inaad maxaan ku buuxisid waxa weeyaan horta waa in aad dooratid program d'étude waa waxa u socotid waa program sid walba ood gelaysidna waxa ugu horeeya inaad geshid eegtid waa program waa inaad dooratid maxaad isku qoraysaa waxaad isku qoraysaa ma sidaan hore weydii soo sheegnay waa afar boo kala kacan waa qaybta maxaa ku tacliinta oo education enseignement waa qaybta caafimaadka médecin infirmier technicien radiologue maxaa ku waraa sage-femme isku wada wuxuu doona qayb technique ingénierie logistique comptabilité maxaa ku uraahideynay tout ce qui est génie dans le domaine du génie civil génie construction génie mécanique maxaa ku génie électrique waxa électromécanique waxa ku dhan maintenance qui va soo gali wixii technique ku dhan après autre quoi droit finance économique relations internationales sociales journalisme kaasna waa partie xilliga adoo garanaya maxaa fieldigaaga amba meesha maxaa ku uraahideynay spécialitégaga amba champ aad ku takhasustay garanaysid ku shaqaysay reer Djibouti aad doonaysid kama ma doonaysid wax ka bilaagsid soo saama xilliga kaaba qaadan programkaad gali programkaad dooranaysaa taas waa waxa ugu horeeya muhiim waa condition ugu horeeya ma kolkaad sid walba ood geshid aad eegaysid waa qaybta ugu horeysa kow maad eegtid ta labaad waa inaad diyaarsatid adminationskaaga kolka adminations waa inaad haystid adminationskii Djibouti ta saddexaad waa inaad kolkaad diyaar ku ahaado wixii diplom ka dambeeyay baaga iyo maxaa ku relevégiisii ta afraad waa relevégiisii ta shanaad waxa weeyaan waa frais de traitement haddaba frais de traitement dossier wax badan maaha waa $40 baa ugu yar ilaa $200 hadday u badnaato $200 bagaadhaba $100 bagaadhaba boqol qaarka oran baa jira $120 laakiin intaaba ugu badan waa frais de dossier waa kii traitement ay ku waxaynayeen waa non remboursable badiga waa aragsa freigan waa non remboursable waan igu daray halkan badiga waa non remboursable waa sida ay meel walba qoraan waa non remboursable halkan freigaas waa non remboursable wax remboursable ah qayb kale jirta test de langue weydiyaan di moment ka wax francophone ka soo wada hadalnay anu waxaan yiri lahaa waa talo laakiin taas inaga ni taala waa waxaad qaadanaysiin qaraarka waa kuwa waxa jira iskoolo waxa jira aan muhiimada saarin laakiin kuwa muhiimada saara jira xilliga test de langue TCFT waxay rahaan test maxaa ku raaf français-ga taasna waxaan yiri lahaa soo eega oo isku daya TCFT oo maxaa ku raaf soo diyaarsada
lien baa jira aan diyaariyey taasna TCF waa sawirkiis waa evaluation linguistique bay ahaan waa kan waa labadan baa jira F bay ahaan test évaluation français kan waxay ahaan test de connaissance français donc Djibouti je pense waa lagu waxeeyaa saan jeclahay meel baa jirta je pense si je me trompe pas après test raadiyaan jeclahayba test français Djibouti je pense meel baan helay hayd demaha maskaxdaydu fiican tahay tanahayn kala jirtay aan arkay kaliya la masalana waxaan laga kan baa jiray Djibouti siidkan waan la qaybsanaysaa oo Djibouti ku yaala sawirkiisiin was enregistré session buu leeyahay jeclahay laakiin ma obligatoire ba jaamacad kasta ku xiran tahay واسلي بدون فيديوهات دنبه كمان ابلكيشن واحد جامعات كسب كونديشن بلا لكن waxaan nasiinayo waxyaabaha inaad diyaar u noqotiin ay tahay qodobadan aan sheegay xilliga halkan baad ka weyn u jisrinaysin Djibouti dadka Djibouti jooga waa Djibouti kuwa Djibouti aan jooginay wadana kala jooga ka soo qaad kuwa badiga Turkiga amba Masar amba kuwa Senegal jooga amba kuwa Europe Faransiiska Belgique amba Scandinavia hada joogtiinba xilliga kuwaasi meesha ay u dhow wadanada u dhow ambaasad u dhow dadku yaan jecelahay laga maraa moodoo dhigi karayo liyaasha laakiin kuwa hadda dadku u badan yihiin waa Djibouti haddaba institution ma waxaya institution xilliga daadadkii oo ku dhammaysay wax wadin business-kii ma malaynaya xilliga miisaanjuurka waa isoo sinin karaysiin inkastoo period de covid iyo sheeko badan baa jirta ma lacagaha lagu maro ku dhammaysinayaan laakiin est obligatoire ma tahay pas vraiment taas obligatoirement laakiin isku diyaari way dhacdaa ka qaar jaamacadu weydiiya iyo kuwa waxa jira uma baahnidin inaad halka aad ka adigtiin laakiin halkan timaadi ma maraysi kuwa kale saay ilaaha inay weydiraan kuwaasina weydiraan oo maxaan ku raaxdeenay qayb waxa jira dadka maxaan ku raaxdeen kala weydiiya dad soo laamano kow maxaan iri waa ina soo dooratiin programka laba admissions kaaga waa ina diyaaristid diploma kaaga saddex wixii diploma ka dambeeyay baaga ina diyaarisid in maxaa wixii relevé ka dambeeyay afar ina diyaarisid maxaa ku raaxdeenay lacagta faqad traitement kolka dhigtid demoodku waxay leeyihiin qoraysid lacag waa inaad isku maskaxdaada gelisid in 42 wax u dhaxeeya lagu weydiin doono oo lagu soo celinay kolka qaybtan shanaad maxaa ku raaxdeenay lixaad baa ujeedaa waa test de langue aniga yiri wax obligatoire ma donc test de langue halkan dan ni sheego wax obligatoire ma laakiin pas obligatoire pour certaines universités. لكن مهم واحد تدي ممكن عن شانس كنا ضانينا بعدين لقى واحد نقول له نسكت ديار صدا ده كريسين أو دينا هذيك لنا كوك من الفيديو دياري وسيدا واركيسين حتى بق واحد وكو لابا صدق أفر شان لحبة نرمى كتضوات وكدري واحد وكدري وحوية تضرب بدي ريج بتشي واحد هيدا والله قارب بدن با وقت ورد لمي سوش قيسني واحد عدا كل اسكول صدقيه صدق اني سو شيء واحد اركيسين كل كاد بشي ماشي ادميسيون ادوني سينا فورمولير ادوني سينا بشي او محبب حسين كاد واحد كل واحد دين ويدينيا اداد كما سوق لبدي سكون لبدي يو شنتي دما سي سكولكا او شنتي ماتنا 20 بالجود شيء مثلا ولا حاجه waxa ku weydiiyay taas waxaad qabanaysay amba shaqo waxaad haysay nood soo diri karaysaa CV iyo waxa ku weydiinaya amba caday maqaal kale ku weydiinaya jira kuwa aanan ku weydiinayna way jirtaa xiliga isku si diyaari in su'aashaan lagu weydiiyo insha Allah haduu Ilaahay gaarsiiyo waa su'aal kamida su'aalaha lagu weydiin karay xiliga waxa weeyaan hadan ni soo gaabiyo insha Allah qaybtan waxa weeyaan waa qaybta ugu horeysay aan sheegay la isku qoro jaamacada halkan waxaad ka faa'iideysanaysiin oo ugu horeeya waxa weeyaan waa in 730 jaamacado ay jiraan 19 Quebec ayna maxaa ku uraahdeen 18 kalena ay jiraan Canada kale maxaa ku province kale francophone waa 12 kale province soo hadhay iyo waxa kale oo ka faa'iideysanaysiin halkan in étude lacagta ay waa 2 baan niri ilaa
maxaa labaatan kun sanadkii ay noqonayso qaarna ay ka badnaan karto waa inaad garatid wixii dhaqaale ku sugaya $12,000 waa wax lagu noolaado sanadka uu qofku noloshiisa amba gaadiid ahaato amba meeshuu geliyay amba wuxuu cunayay weeyaan waxa kaloo ka faa'iidaysanaysa waxa weeyaan maalinta doonaysa inaad gashid inaad isqortid jaamacad waa inaad maskaxdaada gelisid toddobada qodob waa inaad si maskaxdaada aad kolkaa ku haysid wax walna ku diyaar ahaadaan weeyaan qodob muhiim maaha nadi tasdalooga muhiim maaha jaamacadda ku xidhanta aad gelishid unbay ku xidhan tahay laakiin waa muhiim weeyaan inaad garatid shuwaaga waa inaad dooratid waxaad doonaysaa programka ku haysid sid kastaba programkaad eegi waa inaad adrenationskaaga diyaar ku ahaado waa diplomkaaga relevegaaga frais de traitement waa inuu diyaar ku ahaado iyo maxaa ku test de longue obligatoire hayn laakiin haddii lagu weydiiyo muqadiri iyo kokol shaqooyinka oo justificative lagu weydiinayo haddii waxyaabahan conditionada waa conditionada waxay aan wixii talaa maanta aan talo sidii cinema waa sidii wax u leeyihiin ma sheegaya taas insha Allah qayb kale aan dhigin doonayo waa nimcin doonaa astuciyash kale saxtan point ad hayn ama buuxin karin lagaga baxo waa nisiin doonaa insha Allah ka faa'iidays wacan insha Allah duulaani gaarsiyo khayr badan baan rajeynaya insha Allah duulaani ka faa'iidaysta qaybta tan waa qaybtii ugu horeysay jaamacadaha qaybta labaadna insha Allah waxaan nimcin doonaa wixii college jira iyo dhaqaalihiisa buursiga sida loo haysto iyo conditionadiisa asagna la isku qori karayo sida iyo nabadgelyo habeen wanaagsan haddii habeenii tahay hadday maalin tahayna maalin wanaagsan meesha waxay nii tahay baa wanaagsan khayr badan baan nii rajeynaya insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu